بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kasta ay joogtaan. Janaalku waa janaalkiin waa janaalka walaashiin isku fina Soomaali maanta iyo fiideo cusub. Baaquligaasaan soo qaatay waxaan kusoo shubtay 2 bakeeri oo biyo ah iyo 1 bakeeri oo caano ah insha Allah. Casho casriye waxaad rabtid aad ka samayn kartaa maasha Allah. Qudaar iyo asagoo digaagan samayn doona 2 nooc. waxaan kaleeto ku daray 1 qaando oo maaragtay qamiirsa ah. waxaan kaloo ku darayaa 3 qaando oo sokor ah insha Allah. Haddii rabtidna 2 qaando amba 1 qaando waa ku darsan kartaa. intaas isku walaaqaya maasha Allah. haddana waxaan kaloo ku daray tumin oo saliid caday ah insha Allah. haddana waxaan ku bilaabayaa burkii rootigana maasha Allah. rooti wuxuu noqonayaa maasha Allah oo jilicsan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. casho casriyo iskoolka ciyaalka u siin kartaa qadaa ka dhigi kartaa waxaa rabta maaragta u isticmaali kartaa insha Allah. wuxuu diidaya malahan. burka cadkaana ku daraya insha Allah. hadaa rabtidna burka brownka waa isticmaali kartaa hadduu Ilaahay yiraahdo oo qamadiga ah. marka ugu horeysa qaandadaasaan ku walaaqaya kadibna waa soo cajiinaya kadibna waa isla arki doonaa walaalahay. daawashan wacan walaalaha cusub oo YouTube kusoo biirana waa soo dhaweynaa. walaalihii hore u joogan waxaan lehay beedku marti matihiin. janaalka waa janaalkiina insha Allah. rootiga saasuu diyaar noogu yahay waa soo qasay waa soo rifaaqay adiga ilaa 5 daqiiqo camal aan soo rifaaqay maasha Allah tabaarakallah. waa daboolaya haddana waa u jeedin suu u jilicsan yahay wax gacanta ku dhagaayana ma ahan. marka maasha Allah tabaarakallah. haddana waxaan sameynaa digaagaas oo xabadkan rabaa inaan isticmaalo hadduu Ilaahay yiraahdo. saan hore usoo sheegay midna waa digaag midna waxaan ka dhigi doonaa qudaar iyo maaragtay jibnada oo caadiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo oo farmaajada. saliidan birta kusoo shubtay waxaan kusoo shubay basal. basasha markay brown ii soo noqotay waxaan ku daray digaagii maasha Allah. waa isku soo walaaqay markay maaragtay xoogaa maaragtay qoyaankii uu ka baxay dhiigii ahaa. waxaan kusoo daray basas gaduud iyo kaari ay spice ah rabta isticmaali kartaa hadduu Ilaahay yiraahdo. iyo waxaan kaloo ku daray milix insha Allah. intaasaan rabaa inaan isku shiino. intaasaan isku soo shiilaya insha Allah. kadibna waa isla arki doonaa waxyaabaha kale aan ku dari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. daawasho wacan walaalahay. maasha Allah digaaga saas u soo shiilmay wax biyo dhan kuma darin marka hore. waxaan kaleeto ku daray Allahumma mustacaan 1 xabo yaanyo oo weyn aan ku dhex riday oon saas u kala jabiyay. haddana waxaan kaloo ku daray barbarooni. waxaan kaloo ku darayaa kabsar caleen insha Allah. weli maaragtay wax biyo ah dhan kuma darin. aakhirkaan rabaa wax yar oo biyo inaan ku daro insha Allah sida maaragtay spice-kii iyo wixii oo dhan ay isku qabsadaan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. way maaragtay digaagan qoyaan yariis u yeesho because asagoo dry ah haddaad sandwich ku samaysid sandwichta waxba ma samaynayso yacni wax dhadhan iyo wax soos dhexda kama yeelanayso qallayl oo digaag ku dhex jiray noqoni. marka saas darteed waxaan ku dhex riday 1 xabo yaanyo ah wax yaroo maaragtay waxaan ku darayaa oo biyo ah sida maaragtay haddana mar kale labaad intay isku qabsadaan spice-kii iyo maaragtay kabsar caleentii barbaroonigii digaagii 1 xabo yaanyo aan ku dhex riday qoyaan yar uu u yeesho insha Allah. maaragtay sandwichta xashwadan gelinaya insha Allah. saas darteed marka digaageeni maasha Allah saasuu diyaar noogu yahay. saxankaas aan maaragtay ku diyaarsaday inuu ii qaboobaan rabaa. haddana kulayliyaa la gaaray rootiga waxay noqonaysaa markaan xashwooyinka diyaariyay kadib inaan qaso because waa qasay markaas kadib aan qudaarta iyo digaaga sameeyay. soo markuu aad kaaga qamiiro rootiga ma fiicno marka dhaqsi yacni waa bisrac inaad samaysid noqoni wax kasta oo maaragtay oo aad ka gaarsiisid. laakiin hadduu kaa qamir dhaafo oo soo celcelisid rootiga wuxuu kaa noqonaa rooti aan fiicnayn. cajiinkana markaa fidinaysid wuu ku dhibaya insha Allah. ujeedin walaalahay birtii aan digaag iyo aan ku shiilay saliidii kasoo hartay bas aan isticmaalaya basal kale aan ku shubay insha Allah. kana maalaya hadda qudaartii kan keel in la dhahan jecelahay begalka midka u eg waaye ma aha koosta dhihi jiray sax ma aha kaas insha Allah aan ku daray. waxaan kaloo ku dari doonaa maaragtay wax yaroo kaari aan ku daray oo maaragtay spice u baahan yahay insha Allah. wax yariiso cusbo ah
wax kale dhan kuma daraayo, saliid kale kuma dari doono insha allah. Intaasaan ku shiilaya, wax biyo ahna kuma daraayo insha allah, uma baahno because hadaa biyo ku dartid wuxuu kaa noqonaya biyo kaleetuu sii dhalaya. rootigana hadhow waxaa gelinaya xashwadiyo nax aan lahayn, maadaama wixii ay qudaar cagaaran ay tahay, soo inuu kalarkiisa wixiisa dhan uu xafido, yacni uu haystaa la rabaa, uu aada isku bedelin, dabkana uu arko. kadibna waxaan ku dari doonaa jiiska oo waxaan isticmaalaya farmaajada oo Philadelphia, taasaan isticmaalaya insha allah. iyadana dacan fiican ay siinaysaa insha allah. ay qudaarta isticmaalaysid oo jibnadaas heli kartid maaha tii oo biisada iyo lagu daraayo, tii rootiga lagu sameynayo waaye insha allah. oo rootiyadana la marsada sandwichta, tan hadaa heli kartid ay qudaar aad samaysanaysid oo ku dartid oo wax yar oo spice adiga aad jeceshahay ku dartid, basbaas ba allaha ka dhigo. maasha allah tabaarakallah, digaagaba asaa ka dhadhan fiicnaan doona iyo hilibka. baroobey insha allah, ka warkeen hadduu ilaahay yiraahdo. wasfadaana markii igu horeysay aan sameeyo qudaar waa sameeyey, laakiin aan jiiskan aan ku daro jibnadan amba farmaajadan waaye insha allah. waa baroobey hadda kahor sabaariq waa ku darsaday, laakiin ma oga inaan idinla soo sheergareeyay in kale. maasha allah, youtube-kayga way ku jiraan rootiyo badan. walaalahay inaa ka faa'iideynaan rajeynaya. qudaartii waxaan kusoo shubtay saxankan, aan kusoo shubtay si igu qabowdo. digaagana saxankaas kaleetu diyaar igu yahay. wax saliid iyo wax qoyaan ahna ma lahan because hadhow haddii kaleeto rootiga isma qabsanaayo. marka insha allah rootigaan diyaarinaya hadduu ilaahay yiraahdo. la socod wacan walaalahay, videogana like saara bal insha allah, adigoo mahadsan. intaasna isla fahnay aan u malaynaa insha allah inaad ka faa'iideen aan rajeynaya hadduu ilaahay yiraahdo. haddana waxaan diyaarsanayaa rootigii aan laba noocan ka dhigaya, midna waa dhuudhuubaya sida rootigeena ubana olimal dhihi jira, dhuudhuubaan ka dhigaya. midna waxaan ka dhigaya rootiga oo beegarka oo kaleeta oo qudaarta midka ah oo wareegaan ka dhigi doona insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. burkeenina saas uu qamiiro saa hore usoo sheegay, hadda waqtiga kuleelkaa la gaaray. 30 minute burkaada qambeerkiisa waxaan ku dhahay maasha allah tabaarakallah, isagoo ahaa isticmaali karta, laakiin inaa aan wixii aan ku dhex shubi lahaay haddaan raba inaan keligiis sameeyo is okay. haddii kale waxyaabihiisa inaan hore usii diyaariyo waaye, saan hore ugu soo sheegaba videoga because hore u kasoo qamiiraya. laakiin winter timeka 2 saacadood aad tuugaysaa ku dhahay, amba meel foornada dhexdeeda gelisid amba dabka agtiisa u dhaweysid waa isugu uu dhaqsi kugu qamiiro. laakiin hadda maasha allah tabaarakallah, hada min fadli rabbi waaye. maalina qabow haysanaa, maalina kuleel. ilaahay waxaan ku dhahay nagu amaansada meel kastoo joogno. maasha allah tabaarakallah, waxaan soo qaatay wax yaroo saliida meesha mariyey iyo iyo gacnahayga insha allah. mara u baahnid balastiga haddii gloveskaas kugu jira gacanta ma kugu dhagaayo rootiga insha allah. saasuu u jircan yahay. hadda midkaan sameynaya kii digaaga waaye, dhuudhuubaan ka dhigaya insha allah. saasaan kusoo wada dhameynaya. marka hore gacantaan ku balaarina, wax qori lagu fidiyo dhanba uma baahnid, gacantaada saas ugu fidine. yacni haddaa rabtid 4 gees inuu noqdo, dhuudhuub hadduu noqdo sida adiga aad jeceshahay aad ka dhigaysa insha allah. saasaan ka dhigay. hadduu ilaahay yiraahdo isagoo birta lagu duwaayana dala soo wadaagi doono hadduu ilaahay yiraahdo, oo foorna la-aan ah insha allah. waxaan isku dayaa isoo foorna la-aan inaan idinla soo wadaago hadduu ilaahay yiraahdo. marka maasha allah tabaarakallah, kulligii saasaan kusoo dhameynaya. kan dhuudhuuban xabadii koowaad waa sameeyey, tan xabadii labaad waaye. maasha allah wuu noqonahaan ku dhahay rootigan. haddaa silaada gacantu kaaga dhigay ama meesha wax ku sameynayso kaaga dhigay, intaa bur yar marin lahayd wax yaroo saliida iska mari insha allah. kadibna maasha allah tabaarakallah, wax gacna kaaga dhigdhigaya maahan. markaa qasaysidna haddaa rootiga si fiican u rifaaqin oo rootigii weli biyihii ku dhex jiro oo iyo burkii si fiican u cajiinayn hadduu yahayna hadhow wuu ku qabsanaa oo si fiican isuma raacaya insha allah. marka si fiican 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo inaa u cajiintid waa miiska dhigataa, baaquliga dhexdiisa ku cajiintaa, makiinad u qaadataa. rootiga haddaa si fiican u cajiintid oo isku dhex gelisid maasha allah tabaarakallah kugu soo baxaya.
marka maasha allah rootigeena dhuudhuubka saasaan kusoo dhameynaa insha allah walaalahay. kadibna waxaan bilaabi doonaa nooci kaleeto oo qudaarta. kana waa kii digaaga waay saan hor usoo sheegay inaad ka faa'iidi doontaan aanan rajeynaya insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. maasha allah rootigeena saasaan dhuudhuubkii aan usoo saxankaan warqad soo saartay oon foornada la gelin lahaa. hal xabo ukun ah shaharkeeda meesha kusoo riday, caanaan kusoo daray. caanii wax yar iiga bateen laakiinse okay. ukun kale ma rabin inaan haddana sii jabiyo maadaama aan isticmaalayna meesha cad ee ahayd maaragta inaan rootiga u isticmaalo marka hore ma ii noqonin. marka maasha allah tabaaraka allah marmar maaragta qaladii aad samaysid markaa cuntada karinaysid oo wax duubaysa next time waa ka faa'iidi kartaa amba qof kaloo walaalkaa ah soo maaragta qaladkaas ugu dhicin oo wixiisa maaragta uu uga faa'iido. marka maasha allah tabaaraka allah ukuntii aan soo mariyay, shaharkii iyo caanihii aan isku soo daray. waxaan kaloo korka uga shubay waa sisin. haddaa rabtid xabad sooda isticmaali kartaa, haddaa rabtidna sidiisa aa ku dhaafi kartaa insha allah. haddana qaybtii waxaa waaye oo qudaarta waxaan ku daray baqdoonis. baqdooniskana waxa af soomaali lagu dhaha ma aqaani, midka kabsar caleenta u eg waaye insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. insha allah kaasaan ku walaaqay hadda maasha allah kii iyo balbalaarka sida beegarkii oo kaleeto kaasaan maaragta hadda aan sameynaya insha allah. kii ugu horreeyay wuu iga go-ay fiidiyooga, kana kii koowaad ii noqonaya oo hadda maaragta kaamirada soo qabatay. qudaarta soo aragtaan wax qoyaan dhan ma lahan. jiiskii iyo maaragtay maasha allah spicekii yaraayo ku daray alaabtii oo dhan oo isqabsatay. maasha allah tabaaraka allah wax faraha kaaga dhigaya ma lahan. qudaarta sideeda maaragta haddii qoyaan yara oo dhadhan ay leedahay oo jiis amba wax ku jiro oodna biyo aad ku darin maasha allah wuu noqona rootigaada. laakiin hadday qoyaan leedahay adiguu ku dhibaya inaa maaragta rootigiiba isku xirtid afkiisa oo maaragta uga balaarisid markaa yeelaayo. marka maasha allah tabaaraka allah kulligiis saasaan kusoo dhameyna. haddana kii labaad waaye. maasha allah tabaaraka allah haddaa u baratid inaa rootiyada waqtiyada maaragta oo guriga joogtid oo kale haddaa maama shaqaysa tahay waa uga faa'iideyn kartaa faamilkaada iyo naftaada. wax aad gacantaada ku samaysay waa samayn kartaa maaragtay maasha allah tabaaraka allah. wixii rabaan ha noqdaan aan ku dhahay. almuhiim hooyo hadday jiko gasho ilaahay maaragta hooyooyinka noo dhaafo. intaan hooyo ahayna hooyo kheyr qabto maaragta iyo awlaad kheyr qabta allah siiyo. inta haysatan allaha maaragta u xaafido oo maaragta awlaad tarbiyeysan oo ahli diin ah oo baariyaal ah allaha uga dhigo. marka maasha allah tabaaraka allah shiiqaa noqdo maanta waa soo duceey, ducada waa loo baahan yahay. marka maasha allah tabaaraka allah walaalahay saasaan kusoo dhameynaya hadduu ilaahay yiraahdo. qofka muslimka inuu duceeyaa la rabaa, shiiq iyo shiiq la-aanba maahan. marka intaasna waxaa maasha allah tabaaraka allah. waa kana hadda rootiga foornada isuu ku jiro nalkan u shiday wax yar u dhignaa. kii oo dheerdheerka saasuu diyaar noogu noqday. haddana kii oo qudaarta isagana saana kasoo dhigay maasha allah tabaaraka allah. haddana waxaan soo mariyay ukuntii iyo caanihii aan kii hore mariyay. kan marka waxaan ku darayaa xabad sooda waaye insha allah. haddaadna jeclayna sisinta isticmaali kartaa oo maaragta waxaa isticmaali kartaa boorashka hadduu ilaahay yiraahdo. oo ay maaragta waxa adiga aad rabtid chia sida isticmaali kartaa without maaragtay oo wax ku darinaa rootigaas samaysan kartaa. kii dhuudhuubna waa kaasa maasha allah tabaaraka allah saasuu diyaar noogu noqday. kalarkaas goldiga oo maaragta qurxan uu noqday maasha allah tabaaraka allah. rashiinaya rootigeena saasuu diyaar noogu yahay. kii rootiga oo ugu horreeyo number one-ka hoosna saasuu guduud ugu yahay maasha allah tabaaraka allah. baroobe insha allah ka war doono wax la dhashay ma jiraan. wax kasta waa la baroobeyaa markastana maaragta jikadeeda idaa macalinka ah laakiin waxaa la kala istafiidaa. marka maasha allah walaalahay inaa iga faa'iideen walow wax yariisa haddii allah ka dhigo aan rajeyna hadduu ilaahay yiraahdo.
adikana wax kale idinkama rabo duco bas haddaa iigu badashiin haddaa wax yar qaanaadkay ka istafiideen maasha allah tabaaraka allah intaasaa subscribe-ka iyo like-ta la sheegayaba iga fiican waxay qabtaan kuwaas ma aqaani ina meesha la iska buuxiyo ninka loo buuxiyana wuxuu dhahayaa weli ha laysoo buuxiyo marka waa kaasa walaalay intii awoodda oo saarta waxaa la jasaakumullahu khayr intii aan awoodin oo saarin waxaa la jasaakumullahu khayr markasta aniga waxba igama halaaban allahuma laka alxamdu walaka alshukr ilaaha mahad iska leh marka maasha allah tabaaraka allah rootigeena saasuu diyaar noogu yahay labadii nooc saxan kaleeta iga dhiman isagana waa sameynaya meeshaan soo dhigi doona hadduu ilaahay yiraahdo daawashada daawateena waa ku mahadsantihiin iyo maaragtay dhiirigelintiina jasaakumullahu khayra idin leeyahay sidaan iyo mar kale aan ku kulmeyn fiideo cusub waxaan kaga tagayaa fii amaanillaah asalaamu calaykum